الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيان حسينا وينينينا إسحسوسينينا وحو نقرب جل جلاله جل شأنه. الله سبحانه وتعالى وحوليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلهي سبحانه وتعالى يا ملائكتي سوحا أي كسلنا يان نبي محمد عليه الصلاة والسلام دتك مؤمنين تأهو كسليا النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا كسلسين ولا جارسينا شفاعتي صدتك هلا أو يوم القيامة والشفاعة إلهي هنقمد دقو كوا وددي سراعة أو كتاقنا هذا الدنيا ذا إلهي هنقمد دقو ولا ليال فيديو كان شارقرايا بيجك إسماعيل باشانا لاق يفلو دها سيو إذين سوغار إذينك فلو دها سي إذينكنا أمدك لأسي قارسيسين شار دها adigu haddii aanan khayrka faafinin midka aan dhagaysanaynin yaa gaarsiinaya midka aan Allah subxaanahu wa ta'ala xasuusinaynin yaa xasuusinaya adiga ajir ku raadso cidda kalena xasuusi adigana isxasuusi ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay annabiyyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa azwaajuhu ummahaatuhum nabiga calayhi salaatu wassalaam نفتنا إن كنت على يعد والبوال إن أن راعنا واي وحا أن كدفاع أي نعد والباء وأن جعلنا نفتنا وهو رئيسه كبضا النبي إن كدفاعنا عليه الصلاة والسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إن دتك اللوغو ييرو سيدا وانا أكسان مرارك قار وحا حكمة كجرتا إن أن ننقفك كرهلن waxyaabo ay tahay in akala hadasho laakiin si kala u maareynaysa oo arintaas uga qayb qaadanaysa in xumaantaas qofkaanu joojiyo xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan ka soo sheekaynay qoyskiisii reerkiisii noloshiisii waxaan ka soo hadalnay 9 alxamdulillah waxaan maraynaa maanta tii 10aad waxaan noo dhiman tii 11aad 11kii aan saas ku soo afjaraynaa ونعم إلهي إن أن حصوصنا إنه نوشي النبي عليه الصلاة والسلام وحيك الأهايين خديجة سودة عائشة حفصة زينب بنت خزيمة أم سلمة زينب بنت جحش شويرية إيو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان سقال كاس أيان صوتنا بيني سقال كاس أن صوتنا بيني tirada iga qaldan taraale hada 9 ayaan soo dhameynay tii 10aad ayaan u taaganahay waxaan noo dhiman tii 11aad insha Allah tan labadii u dambeeyay oo xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam aabayaashood waxay ahaayeen kuwa nabiga calayhi salaatu wasalaam cadow ku ah oo la dagaashan oo duulaan iyo weerar ku soo qaaday ahaayeen xaaska 10aadna noocaasoo kale oo ahaa aabaheed labada kale aabayaashood way soo islaameen laakiin xaaskan aabaheed waa ku dhintay cadowtinimadii iyo gaalnimadii ayuu ku dhintay umul mu'miniina waay hooyooyinka mu'miniinta mid ka mida waay waxay ahaayeen intii horoo dhan iyo tan soo socotaba dhammaantood عربي أهاين قريش يقبائل ككلو عربيت لكن تاني واكد وانتهي عرب ما أهين وحي أهد غير بنو إسرائيل يهودية دي أهد أبهد وحوءها النبي أذيرك أنه وحوءها النبي نبي نواقو صدق نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومقعد وصفية بنت حيي نبي عليه الصلاة والسلام مركي أو سو هجرودي أو مدينة المنورة يمد
ayaa aabbaheed iyo adeerkeeda warkii maqlay aabbaheed waa baxyay nebigoo u tegay calayhi salaatu wasalaam waxay haayeen ayagu nebiga aakhiru zamaanka ah oo ugu dambeeya akhbaartiisa waxay ku qorneed towreed sifaadkiisa tilmaamihiisa wixiisa warkiisay haayeen qolada deganeed madiinana inay nebiga calayhi salaatu wasalaam rumayso oy noo soo hijiro noo imaad waa ku difaacaynaa ay dhahaan oo ay ballan qaadaanna waxaa sabab u ahaa ama qayb weyn ka ahaa xogtaas oo yuhuuddu ay towreed ka akhriyeen ayay ugu faani jireen faankii loogu faani jiray ayaa oos iyo khasraji oo 40 sano isdilaysay ayaa waxay sabab u noqotay in qurayshu fahmi weyso oo ay fahmeen ayagu jahliyay ku sugnaayeen laakiin cilmigaas yara wuxuu ku soo gaaray qaab loogu faanayo way ka faa'iidaysteen oos iyo khasraji way ku islaameen way ku walaaloobeen adduuniya aakhiraba way ku baraareen way ku faa'iideen way baxay markii waxaa baxay safiya aabbaheed ayaa baxay wuxuu u tagay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasoo wuxuu weydiiyey su'aalooyin interview waraysi ka qaaday markaasoo wuxuu leeyahay aabbaha aaway waa dhintay agoonnimaan ku soo koray wuxuu weydiinayaa ku soo koriyey su'aalooyin badan su'aalooyinkii badnaa oo dhan wuu ka jawaabiyey waxay u caddaatay inuu nebi yahay laakiin hal su'aalow qabaa oon aragti maahane si kale aan lagu ogaa karin khatmigii iyo calaamadii nabinimada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam garabkiisa dambe ku taalay ayuu rabiyey inuu arko nebiga waa u banneeyey wuu arkay way u sugnaatay marka inuu nebigu aakhiru zamaanka yahay waa u sugnaatay maxaa ka celshay marka inuu rumeeyo wixii shaydaan ka celshay inuu sujuudo oo amarkii ilaahay qaato ma waxaan u sujuudaa wax aad ka abuurtay dhoobow yidhi anigana waxaa iga abuurtay dab naara iga abuurtay waa baxaya wuxuu u tegiyey gurigii ku noqday walaalkii ayuu arrintii kala hadlay oo asigana ahaa nin cilmiga towreed yaqaana markaasuu wuxuu yidhi arrintan ka waran suu yidhi ninku ma asigiya waa hubaa huu yidhi asigi waaye ma hubta ahaa maxaa go'aansatay waxaan go'aansadou yidhi inaan la cadowtinimeeyo inta aan noolahay cadow ayaan ku noqona muxuu ka xanaaqsan yahay in uusan carab ka dhalanin alla ka cabsigii iyo alla hogaansanaantii ayaa waxay la gashay qabyaalad marka hadduu san carab ka dhalanin oo carab ka dhashay ma raacayo laakiin waa yaqiinsay waa hubsay ninkaas ayaa aabba u ahaa iyadana qisadaas ayay maqlaysay dhagteeday ku dhacday arrintaas way ogaatay warbixintaasaa soo gaartay xogay heshay waxaa guursaday iyadoo 11 jira nin salaam la dhihi jiray oo yuhuudi ahaa iyadoo qoladay ka dhalato reer bani nadiir ahayd maalin qolo kale oo qurayda ayuu ka dhashay waa furiyey mid iyada ku qolo ah oo reer bani nadiir ah oo kanaan la yiraahdo ayaa guursaday asigiina dagaalkii khaybar ayuu ku dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa guursaday markii ayaga la soo qabsaday oo la soo qafaashay oo dagaalku muslimiinta ku guuleysteen ayay gacantii muslimiinta soo gashay asxaabi ayaa qayb u helay markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam la wareegay nabiga ayaa sidii kula aqal galay oo ku guursaday wuxuu ikhtiyaar u siiyey inuu xureeyo oo ay qoladeedii u noqoto iyo yuhuuddoodii ay aado iyo inuu guursado oo xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam noqoto ayay go'aansatay oo ay dooratay intii ay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaas u ahayd ayaa wuxuu ku arkay dhaawac dhaanka uga yaalla markaasuu wuxuu yidhi maxaa dhacay dhaawacan muxuu yahay markaasay waxay uga sheekaysay qiso iyada oo joogta gurigeedii oo ninkeedii qabo ayaa waxay ku riyootay qamar amba dayax ku soo dhacaya markaasay ninkeeda uga sheekaysay dharbaaxsho ku dhuftay dharbaaxshaas ayaa daanka dilaacisay laanna wuxuu u fahmay
إن أي جورسن دونته نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركزه وحول ما بقر كيسرب كصوب حي أيات ربطة ما يدم عيسى إنا جورست عدو أيا نفط هذا كته سلاس أيو داوع أسو جاري نبي أي لنا ولد حاسس كيسة كمد أهد إلا أو كجريودي حاسس كالنبي عليه الصلاة والسلام أيا وحيكون دهن قار كمدة حليك للدوان أيا دهن إنا يهود وي أوي شيء مركز النبي عليه الصلاة والسلام أشياكتي نبينا وحو كيري ميادنا رالي كنا قونينين هذا المعنيه سويهي ميادنا رالي كنا قونينين مركلنا إنحوها يا كاشرف بدن إن آبها ويهي نبي أبترسي قد وحو قلا نبي هارون عليه السلام نبي هارون ولالكيسنا والنبي موسى أذير كانوا نبي يهي أو نبي موسى عليه الصلاة والسلام نبينا أو كقوة أو نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا آبهد أو نبي قهوة هارون أذير كاد موسى يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي مركي أو جيريون أي وحاسس كيس أكفديين أيا وحي أي تري بوس كاغا هدي أن كجير لهايان جعلالها حنونك يجيردكو هيسيني أنيغا إهايان أذيقونا أفيودها أيان جعلالها حاسس كي النبي عليه الصلاة والسلام قاركودا هوسس كقنجروفتو مركاسو وحوري وارونتيد روني شيغيسا النبي عمر قاتفري عليه الصلاة والسلام iyadoo saas ah oo islaamtay oo المؤمنين نقطي هدنا يهودي way xariiri jirtay way qaraaba xariirisay samay jirtay qaraaba ahaan ay u xariiri jirtay marka xaaska nabiga calayhi salaatu wasalaam oo Safiya bint Huyay ah xaasaska kale waxyaabaha uga duwaneen marka waxay tahay inay arab ahayn in aabaheed uu nabiga la cadowtinimada ilaa uu ku dhinto nabiga calayhi salaatu wasalaamna daacad ayay u noqotay mukhlisa ayay u ahayd اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته